عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين ياسمين لجعلي هالكاد يقدر ونسان ويوتيوب channel كيكي ياسمين لجعلي official ويدين له كسر دواذا قاعد مفرون أصحاب هري اللي جوكتي وحنا سود دواذا نعوض وحاجين وذا شيء جعيل وأدو حنون بدن وحنا دين له هاي أصحابتي ذا سود دواذا أصحاب هري اللي جوكتو سيدو كلا يجنا قاعد مفرون يا كسر دوينا وحنا له هاي كسر دواذا وولاشين ياسمين لجعلي ويدين وذا قصة جعيل سياديga mid noqotaan asxaabteyda la mid noqotaan waxaan idin leeyahay igu caawiya inaad igu saartaan subscribe ka naga iloobina share idaha si asxaabtiin idin la wadaagaan like de comment yaro dhiirigelinay halka hoose igu soo qor ama social media barta kale intaan ka leeyahay Facebook Instagram ay igu soo tiri kartaan waxa akhbaar oo ii haysaan أصحاب شرفت لك عاو وحنا دين هيا بس آدي وحنون بدن وأمور بدن وجدي هذا بدتا آدي بدين تعاون ضمطة بس وحنا مرتي ويلي جبر الصوماليات قصدي وحنا كده علي عاصمة تلك الصومالية مقدشة ياسيجا يايو قلادي مانتينا قصدي سيها كان كسر جديو ويرادا قصدي إذا يصوبندك مركزية يايو قلادي فرصة أنا صوبن ديجا مانتا ويكي وحا أويري ويكاس وحا لغو مقعابا ليبان وحا أويري وحا نسكو براناي جوادي وحا نسكو براناي ميل شقاء وعن كشقين جري قوب شقاء كشقين جري نسكو براناي وحا يمالي ماشي عن كشقين هيا سدح قبلوت وصاحبة ووضا الصعودة هيا يميد كدب سدحدي قبلوت waxaan ka helay mid kamid ah gabdhihii isla socday oo saaxiibahay mid kamid ah ayaan ka helay oo caashaqay caashaqa indahaaga waxa ay ku tusan uba caashaqaysayo Liibaan gabdhihii saddexda ahayd mid buu kala baxay xamda buu kala baxay xamdi ayuu kala baxay markaas waxa uu weydiiyay telefoon numberkeeda iyo inuu la soo xiriiri karo وأي سود ويسي أو لندن كذي أي سيحمتي وحيتها ده وكنا لندن كذي هو يسوي كذا أوكي مع سنت هاي بيوري أو سيدا سي لو كلا تاعي ليبان وأو وعي حمدي ما كم ده ما أنت تنبأ وعي وحقو ويديه إن إله هاي وحريدة يم كلا أما إن إله صعطة ويل جعل كذا حياة إن إله هاي waxay ugu jawaabtay malihi wax xiriir ah oo waxa uu yiri marka ma kula sameyn karaa ama waxaan rabaa inaan xiriir kula sameeyo ma iyo galaanaysa inaad igu soo dhaweysid qalbigaaga markaas ayay tiray xamdi waxaad siisaa chance ama fursad aan kaga soo fikiro isii dabcan waa uu siinayaa oo haayo yiri qofka qasab ma lagu lahan وليبان waxa uu yiri waan ku siinayaa xaq ayaad ma u leedahay waad ma ka soo fikiri kartaa okay ay tiri oo meeshii la isku macsalaameeyay haddana oo ugu kala tagay xamdi maalin kadib ayuu soo wacay Liibaan oo waxa uu yiri xamdi maalintii dambe ayuu soo wacay Liibaan oo waxa uu ku yiri haye جانس كان بشي هكوسية هل ما لا يوهاي وكوسية أو محد إلى هاي جواب بيان كان سوغايا جواب تسمح على جينا يا إني نقطة ميدوان أحسن نوحا تري حمدي كوسو دو و مع نقولنا لوقف حريق له مركب ترى جانس كيو حكوسو بحدي إن كوسو دويو كعمل فما كوسو دويو ليبان وحا ويري هلكاس أي إنه بلارتي سيديني أما nolosheenii cusbeed jacayl halkaas ayay inoogu bilaabatay okay maxaa kala dhici doona sleedihiin asxaabta sharafta leh marka Liibaan waxa uu yiri halkaas ayay inoogu bilaabatay xiriirkeenii cusbeed jacayl nolosheenii halkaas ayay inoogu bilaabatay waxaan dhaxmaray jacayl aad iyo aad u baaxad weyn farxad reereyn ma sha Allah ayaana dhaxmartay anagii isku faraxsan ilaa iyo waxaan gaarnay inuu yiri heer aad iyo aad u wanaagsan oo ilaa iyo heer guur ayaan isla meelnay inuu yiri ma sha Allah laakiin samaxa ka dambeeyo muruga ayaa ka dambayso Liibaan wuxuu yiraahday
أنا حمدي أدي إنه ما في عن إنه مرسي جعل كني أو حق جارمي إلى هير جور إنه جارتي مركز وجه جراده هبين هبيرة كمية أي اسم وعدي حمدي يلا وينيسو ومحل هذا أصلاً من أصحابه محل وضع وفكركوا وين وحير ما كويسية حمدي محكور على أصلاً حمدي وحى أكري أيوه هذي حمدي يلا وينيسو أي صو وعدي حبيب جاسو محل كتير وادي كيانتي أما وادي يجلسي يلا وينيسو صو وعدي محل كتير وادي خيانتي أما وادي يجلسي markaas waxaan ku yiri Liibaan maxaa kugu dhacay ama maxaa kugu qiyaamay maxaad la iimaynaysaa maxaa u oynaysaa bal ii sheeg waxa jira markaas ayay igu tiray ayuu yiri xaas ayaad leedahay taas ayaad igu qiyaamtay anigana wuxuu yiri Liibaan waxaas ehmalihi waxa ay tiri ayuu yiri xaas ayaad leedahay waana been ayuu yiri Liibaan waxaas aniga malihi ayaan ugu jawaabay oo adiga ayaan kaliya ayaan ku jeclahay aniga waxaas oo aan leeyahay ma jirto ama waxa ka qarinayo ma lahan ay igu tiraahday markaas ayuu Liibaan waxa uu qiyaastay in uu meesha sadeexay ku jiro gabadhan lagu soo diray ma la waynayo jacaylku waxa fiican ku ah mar walba fiican ka jiro meel walba lama qof isku faraxsan hadii la arka bala baa soo dhaxgasho waxa la isdhahayaa labadan qof isku faraxsan sidee isku faraxsan yihiin kala beebiya ama kala dhaxdooda gala marka xaasid baa soo galay oo jacaylkii xaasid ku ah ayaa dhaxdooda soo galay xasbi Allah wa ni'mal wakiil xaasidkaas oo kala diilay inagama adeejiyo xaasid ayaa soo dhaxgalay Liibaan iyo Xamdi oo isku diraya halkaas ay ka bilaabatay sheekadoodii in la isku diro oo la isku qabsiyo oo jacaylkii ilaa iyo gaaray heer guur oo meeshaas ayuu ku burburi doonaa markaas wuxuu yiri waxaas aniga malihi walaalay macani adiga ayaan ku jeclaa adiga ayaan noloshayda aniga adigana xaaskayga noqon doontid insha Allah bas waxaan ahay qofkii wax walba meel aniga kula dhigtay markaas ay tiraahday may oo waxa uu weydiiyay marka qofkan sadeexayaha oo rabay inuu isku keen diro ii sheeg aniga ayaa iska celinaya qofkan beenta ku soo sheegay ii sheeg aniga ayaa iska dhicinaaye aniga waxaas inuu leeyahay aamin waa sax Liibaan wuxuu yiraahday aad ayaan ugu xumaaday oo qof dhan oo aad jacayl ku heshiiseen xaalad ilaa iyo heer guur aad ku heshiiseen oo haddana ku leh xaas ayaad leedahay oo waa lay soo sheegay oo haddana ku sheegeen qofkii waxaas ku sheegay oo ku leh run waaye way jirtaa waadna leedahay iska keedaaf oo ammaankiisii maxaad ku samayn kartaa il iyo wuxuu yiraahday xanaaq ayaan habeenkaasi ku kala tagnay iyo qof walba asigoo ilmeynayo waa dareemi kartaa marka qofka aad jecleed xiriirka kala dhaxeeyay habeen haddaad isku dhacdaan oo sheekadii barkamale ay gaarto in ilaa iyo heer xumaanaya marka wuxuu yiri Liibaan aniga iyada labadeena kala xanaaqsan oo qof walba asigoo ilmeynayo ayaan habeenkaasi kala tagnay ayuu yiri oo qof walba telefoonkiisa dansaday oo ilin iyo waxa lagu seexday xanaaq ayuu yiri anigana ugu sii jirto yiraahday ilaa qofkii la nawaaya aniga waaye oo la dhahay xaas ayaad leedahay xaasna meel iima joogo oo iyada ayaa barabay inaan xaas ka dhigto xaaskaygii koowaad noqoto iyadina way ay aamini weysay oo waxay ku tiraahday may sheekadaas way jirtaa Liibaan waxa uu yiri halkii waxa ka dhashtay kalsooni darro oo waxa luntay kalsoonidii ayaa luntay 3 bil ayuu yiri maskiin jacaylka ku haya sidaas marwalba Liibaan waxa uu yiri 3 bil ayaan xal raadinayay sida aan ku qancin lahay Xamdi oo wax walba aan suubiyay xal walba aan suubiyay oo isku dayay si walba aan qanciyo lahaa malihi aniga xaas oo miyi qof xaas la ah mana ii joogto wax xaas aan isku dayay inaan qanciyo iyadana taagan tahay maya Liibaan wuxuu yiri si walba ayaan isku qanciyay oo waa aniga wax xaas aan leeyahay ma jirto markaas ay ku tiraahday waad leedahay xaas
وحاس وقطع حاس كاجينا وحي جوتا يورو يا يورو أي جوتا أيو يدري أيو ده ليبان حمدي وحي جوتا ده حاس كاجا يورو أي جوتا حاس يلا ده يورو أي جوتا أنا بابنا نبتين ينار يا خلول على هاي مركي لو نبغى وحدا سمينين مركي لو نبغى وهذانا وحبا هذا كده كريم قفك نكو آمنين أذيك نسداعد أو أبو شيء جيسد هذا أيوة حنون بدن تهاي هذا يعني وكم هاي الماء قلبي جيسي داو على سوق جاري ودريب كرتين أصحاب شرفت له جعل مركا أوكو هايا وهذانا قفك الجعلات لو دري وقفك نكو آمنين ودهايا ماي هالكاس وهم وين جرتا واحد سمي سنة هذا جران كريم هذا أيوة حنون بدن تهاي ليبان مسكينك waxa uu sameeyay ayuu garan waayay oo maxal ayaa ku xumaaday liibaan wuxuu yiri habeenadii kamid ah ayay isoo wacday waxayna igu tiri iska keydaa oo nadaa ku marhabo habeenku marabo maalinku marhabe iska keydaa oo ammaankiisii sidaas ugu harin ayuu yiri waan baxay oo gurigeedii ay deganeed ama ay ku nooleed ayaan u tagay ayuu yiri saxdee wax kale xal kale la sameeyay ma laha qofkii aad jecleed hadduu ku dhaw iska keedaa oo wax riisan ahna ama wax oo sabab aad ku daysana aadan garanaynin oo wixii u sheegaysidna kaana qaadanaynin aad ayay waxaan u badan tahay liibaan waxa uu yiri waxa aan ugu tagay xamdi goobtii ay deganeed ama gurigoodii hooygoodii ayaan tagay waxaan rabay si walba inaan ugu soo dhaadhiciyo waxay runta xaqiiqadana u sheego xaqiiqadana ay tahay mid aan ku taaganahay oo ah inaan maxaas lahayn laakiin xamdi waxaasi kumaba soconayaanba waxaa la dhahaa qof meel oo caddahay meel ka mudow marka xamdi iyadana maskiinta jacaylkii uu ogaayay oo qofkaadi markii maanta dareemi kartiin masiir ayaa meesha ku jiro masiirna masahlana waayo masiirta maskiinta oo waxay istiraadeen ninkaa naagta leh wuxuu ugu qarinayaa oo niman naago way jiraan oo ku galaaya nin naag leh oo dhahaya maxaa iga galay iyo ama anaa ku rabo naagaha isku mid maaha gabdhaha isku mid ma ahan ilaahayna biniaadanka isku mid kama dhigin oo xamdi waxaa laga yaabaa inayba neceb tahaybo nacdoo dhanba naagoo dhan meelay soo gashinay necabta ayaa laga yaabaa waxay tiray ima soo gashid iska kaydaaf ammaankana isii gurigeygiina iiga tag ayay igu tiri iyadoo xanaaqsan ayuu yiri liibaan miskiin hadda ayaa ugu xumahay liibaan way dhacdaa sawir ayayna u baahan tahay jacaylka runta ah waxaa la dhahay jacaylkii aan loo soo dhibtoonin ma gaaro meel dheer oo waxaa la dhahay gurigii geedkii deedeel lagu koro adigu deedeel ayaa lagu soo degaa oo wuxuu isku dayay wax walba inuu xaliyo oo runta ugu sheego oo yidhaahdo may anigoo ku jeclaa adiga maahane cid kaleento oo maanta ii joogto ama xaas kale aan qabo ma jirto laakiin xamdi waa ay ka dhaadhici weyso waxaas oo waxaaba u cadko qofkii isku dirayay ama saddexeeyihii run hadalka oo u sheegay ayaaba run u ah gacliyaheeda hadalka oo u sheegay maba ujeedaba waxa ay tiray may walaal macaan ammaanka iska keysii soo ma garanaysid af soomaali maaha lahaa ammaanka iska keysii gurigeygiina iiga tag ayay ku tiri iyadoo xanaaqsan qofka marka uu xanaaqsan yahay hadalka afkiisa ka soo baxaya ma kontarool karo wuxuu iskaga dhaqmaya qofka markuu xanaaqsan yahay looma qabto liibaan wuxuu yiri waxaa sameeyaan garan waaye gurigeyga iiga bax maadaama ay ku tiri iyadoo xanaaqsan oo ayna xanaaqsan tahay qofkii wax kastaan u sheegay aysan iga qaadanaynin waana iskaga soo tagay ayuu yiri liibaan ku qasban yahay liibaan waxaa kaloo aad samaysa ma jirta ma lahanba liibaan wuxuu yiri waa iskaga soo tagay anigu oo aad u murugaysan oo aad u ilmeynayo oo aad xaaladeydu xun tahay ayaan gurigeygii kusoo laabtay ayuu yiri maskiin maxaa dhici doona ayaad isleedihiin asxaabta sharafta leh maxaa soo socda ayaad isleedihiin maxaa isbedeli doona ayaad isleedihiin liibaan waxa uu yiri gurigeygii ayaan kusoo laabtay anigoo aad u murugaysan liibaan waxa uu yiri anigoo ilmeynaya inaan gurigeygii imaaday ciil iyo cidlo ayaan la ilmeeyay ayuu yiri waxaan dareemay ciil ayaan dareemay cidlo ayaan dareemay
qof aad jeceshahay oo haddana si daacad aad u jeceshahay wax walba aad si daacad ah ugu sheegaysid oo haddana hadalkaagii qaadanaynin oo hadal qof kaleento uu ku soo yiray qaadanayso ayaa iga dhaadhici weysa ayuu yidhi waxaan isku dayay ayuu yidhi naftaydii aan u sheegay inaan ka maarmo maadaama ay iyadiiba iga maarantay oo i leedahay kuma rabo mana isoo geshid mana ku rabo ammaanka iska kaysii maadaama ay igu leedahay waxa uu isku dayay asigana in uu ka maarmo oo isku dayo wax walba bas jacaylka keligiisa ma haayo oo iyadaba waa uu haye laakiin qof aad jeceshahay oo aad heer guur isla gaarteen oo aad ku qanacsan tahay ama daacadaad u tahay oo haddana adiga hadalkaaga qaadanaynin aad ayay u dhib badan tahay Liibaan waxa uu yiri maadaama iyadiiba ay isku dayday ama ay rabtay inay iska ilowdo qalbigeeda iga bixiso ana naftayda waxaan u sheegay ayuu yiri inaan iska iloobo oo qalbigayga ka bixiyo okay maxaa dhici doona yaad isleedihiin markaas asxaabta sharafta leh Liibaan waxa uu yiri xanuun badan kadib iyo murugo kadib waan ka soo bogsaday jacaylkii aad u xanuunka badnaay waan ka soo bogsaday ayuu yiri inkastoo qalbigaygii ay weli ay ku jirtay laakiinse waan ka bogsooday xanuunkii ama dhaawacii soo gaaray waan ka bogsooday ayuu yiri 4 bil markii ay ka soo wareegatay ayay dib ii soo wacday ayuu yiri maxaad isleedihiin asxaabta sharafta leh marka maxaa soo socda ayaad isleedihiin oo Liibaan maxaa uu la kulmay ayaad isleedihiin 4 bil markii ay ka soo wareegatay ayay dib ii soo wacday ayuu yiri Xamdi oo socoto oo igu leh iga raali ahaa Liibaan waan qaldamay oo waxaan ugu sameeyay dhan wax qalad ay ahaayeen runta ayaan soo ogaaday oo waxa aan ku cidleeyay Liibaan waxa uu yiri 4 bil kadib ayay soo wacday markii iyadoo soo ogaatay waxa ay sheegaysay ama waxa wixii hore dhan inay ahaayeen wax been ah oo ay iqaabtay waxa dhan ay iqaabtay ama iga tagtay inay ahaayeen wax been ah subhanallah waa ay dhacaan wax walba laakiin waxaa la dhahay inaad farqa fiirso oo qofka dambiraalaha ama xaasidka hadalkiisa inaan la qaadanin ayaa wanaagsan oo hubsiimaha lala siistaa oo qofkii bini'aadanka inaad sii wadid oo jaanis aad siisid inta aad ka soo baaraysid haddii ay runta hadalkaani haddii kaleeto ilaa qofka isma qarin karo way soo bixisaaye waxaa wanaagsan inaan la qaadanin markaas Liibaan wuxuu yiri aniga wixii dib ahay aan mari karo waan soo maray oo hadda waan ka bogsooday dhibaatadii soo martay inkastoo weli aad qalbigayga ka bixin ayuu yiri waa sax meel qofka jacaylka uguma baxa wuxuu yiri inkastoo aad qalbigayga weli ka bixin laakiin dib wixii aan soo mari karo waan soo maray laakiin hadda waan ka bogsooday ayuu yiri Liibaan waxa uu yiri miyihi kii shalay dhibanaha ahay maanta waan ka bogsooday dhibkii soo maray inkastoo aad weli qalbigayga ku jirtid Xamdi waxa ay leedahay ayuu yiri waa qaldamay oo shalay waxaan kaaga tagay qalad ayay ahayd hadda waxaan rabaa inaad dib iigu soo laabatid ku baryaa ii soo laabo ayay leedahay anigana ma ku laaban karo ayuu leeyahay asxaabta sharafta leh oo waxa uu leeyahay Liibaan qof shalay aniga i aamini waayay oo aaminay qof kaleeta sidee aniga ku aamini karaa ama aan isku siin karaa ama aan dib ugu laaban karaa ayuu leeyahay Liibaan waana sax Liibaan inuu sidaas yiraahdo xaq ayuu u leeyahay because qofka shalay aad aamini weysay adiga oo aad ka tagtay oo aad aamintay qof kaleenta oo shaqo iyo shuqul aad isku lahayn ama diradiraale saddexeeye haddii aad aamintay bari qofkii aad jecleed haddana dib aad ugu soo laabato si uu ku aamino ma lahan oo meeshaas kalsoonidii ayaa lumayso Liibaan wuxuu yiri kuma laaban karo maxaana sameeyaa Liibaan waxa uu yiri kuma laaban karo oo haddii aan ku laabto ayuu yiri bari meesha amaanta joogo meel ku xun anigoo jooga ayay iga tagaysaa oo haddana waa lagu dirayaa kuma laaban karo ayuu yiri waana sax qof shalay lagugu diray
برينو على وجود دراية وقفكاس سيعد كو أمين تما بالهمبا وقفكاس قفكاس أريك ما بكو أمين عيبا وقفكي كلام تدر دراها أيو أمين عيا حقا يقولوا لي إنه ليبان ساسدها وحويري أنيقا ما أميني كراقف شرعي أميني واي وحالات دي أنا صومري حالات كوحن أنيقا وجوده أي هدنا اللي يقدري كرايو halkii ayay haddana iiga tagi kartaa waa sax liibaan waxa uu idin leeyahay asxaabtayda sharafta leh shalay qofkii sidaas iiga tagay maanta ma aamini karo oo waxaan idinka rabaa inuu yiri liibaan talo inaad isiisaan maxaan sameeyaa oo shalay qofkii sidaas iiga tagay oo maanta ii soo laabtay ma aamini karo oo kuma laaban karo laakiinse waxaan idinka rabaa talo mid kale ayuu yiri liibaan maxaad leedihiin saddexeeyaha jaceylkaasi burburiyey ama isku keena diray aniga iyo xamdi maxaad leedihiin ayuu idin leeyahay liibaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh